tahay walaadkii nimanka dacwada isu haysta u garnaqay oo inta kitaabada u furfuray xukunka riday isla goobtiina isla dacwadii inta ku noqday xukun kale ka soo saaray markuu ogaaday isaga qudhiisu dhinacii eedda qaaday inuu ka mid yahay waxaa la yidhi nin baa beer tabcaday dabadeedna masago fiican ayaa uga baxday isaga oo aan weli goosan ayay inta soo gashay waxaana ka dhigtay lo aan lala joogin oo meel aan u dhoweyn ka soo fooftay ninkii beerta laga cunay iyo kuwii lo'da lahaa ayaa dabadeed arrintii ku kala bixi waayey oo hadalkiina ka taagtaagmay raggii halkaa joogay ayaa markaa labada dhinac kula taliyey inay shareecada iyo diinta eebbe ku kala baxaan waxayna farta ugu fiiqeen wadaad geyiga wax ka deganaa oo halka wax ka dhaceen aan reerihiisu waxba qumban ka fogeyn markii loo warramay dhinacyadii ishayeyna uu si wacan u dhagaystay ayuu nin meesha fadhiyey waran uu sitay inta ka qaatay dhulka ku joojiyey xukunkiina ku dhawaaqay wuxuu yidhi waxaan xukumay lo'da beerta cuntay nimanka lihi warankaas jooggiisa oo masago ah inay siiyaan ninka beerta leh hadalkii oo aan afkiisa ka dhammaan ayaa qoladii lo'da lahayd nin ka mid ahi wuxuu la soo booday sheekhow hadda lo'da beerta cuntay taaduna waa ku jirtaayo ogow markaas buu inta warankii laacay dhulka jiifiyey oo xukunkiisii hore inta mid kale ka dambaysiiyey intii dhegaysanaysay wuxuu maqashiiyey la jiifiyaana bannaan oo noqotay mahmaah markii garsoor xumo la dareemo xusuusta soomaalida ku soo dhacda lagana hormariyo wadaadkii wuxuu yidhi